assalaamu calaykum. mowduucaani uga hadlimayno barnaamij gaar ah keliya waxaan isku baraarujinaynaa isla mar ahaantaana aan isku dhiirigelinaynaa tobanka dambe ee bisha ramadaan waan ognahay in ay ka fadli badan tahay habeenada kale. waxaa hoogay oo khasaaray isla mar ahaantaana ay u sugnaatay caro alla subxaanahu watacaala qofka ilaahay subxaanahu watacaala kusoo gaarsiiyey bisha ramadaan caafimaad iyo jir bad qaba haddana aan la imaanin cibaadadii oo ay ugu weyn tahay waajibka qof kasta oo muslim ah oo qaangaara caqli laneh la saaray oo ah in ay qofku soomo. sidaan la soconno bulshadu waxay iskugu jirtaa kuwa saa'imiin ah oo qalbigooda laga helay iimaanka iyo alla kacabsiga iyo kuwa aan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsan qalbigoodana wax iimaan aan ku jirin waa qolada loo yaqaano masoomayaasha. waxaad arkaysaa markaad dibadda u baxdo ama magaalada ama suuqyada aad aado dad dhalinyaro u badan oo waxay rabaan sameynaya iyagoo aan ka xishoonayn allah subxaanahu watacaala iyo dadkaba waxay doonaan cunaya. runtii waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso aad dhahdo sidee ku ogaatay dadkaas inay caafimaad qabaan. runaantii qofka xanuunsan iyo qofka caafimaadka qaba isku mid ma ahan. dabcanna caafimaadku wax la jiri karaa ma ahan, qof kastoo caqlina wuu dareemi karaa. qof xanuunsan iyo qof aan xanuunsanaynna qaab ahaantooda isku mid ma ahan. waxaad tusaale kugu filan isla mar ahaantan aad ku fahmaysaa nashaadka iyo qaabka jirkooda. run ahaantii xanuunka la jili karo oo dadka laga dhaadhici karo inuu yahay mid been ah ama farxad loo muujin karo waa xanuunka qalbiga. tusaale ahaan qofka hadduu niyo jabsan yahay ama wuxuu jecel yahay uu waayey ama niyadda ay ka jaban tahay laga yaabay dadka inuu dhoola caddeeyo oo uu qoslo. qofkaasi lama dhihi karo marka niyadda ayaan ka jaban, sababtoo ah wuxuu muujinayaa farxad been ah aan gudaha ka jirin. laakiin xanuunka jirka marnaba ma qarsamo, mana jiro qof jili kara caafimaadka. dabcan caafimaadku wax la jili kara ma ahan, si lamid a xanuunkuna ma ahan wax la jili karo. oo caafimaadku waa hadiyad ka mid ah hadiyooyinka oo ilaahay subxaanahu watacaala siiya addoommadiisa, waxaana dareemi karo qiimaha caafimaadka qofka xanuunsan. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah inaan garanno qiimaha bishan ramadaan ay noo leedahay. dadka saa'imiinta ee soomanne waxay garan karaan qiimaha iyo qadarka bishan ramadaan ay leedahay. gaar ahaan hadda waxaan ku guda jirnaa 10kii maalmood ee ugu dambeeyey bisha ramadaan oo aan ognahay inay ka fadli badan tahay habeenada kale, oo rasuulku sallallahu calayhi wasallam 10kan dambe aad ayuu ugu dadaali jiray in ka badan intuu ku dadaali jiray 20kii hore. 10ka dambe ee bisha ramadaan waxay bilaabataa 21aad habeenkii ay tahay. haddii uu ramadaanku ku dhammaado 29na waxay noqotaa 9 habeen. 10kan maalmood ee ugu dambeeyey bisha ramadaan waxay leeyihiin faa'iidooyin ay kaga duwan yihiin habeenada kale, maxaa yeelay waa habeen uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam dhammaantood ku nooleyn jiray cibaado. waxaa kaloo jira habeen ka fadliga badan ee qof kasta uu raadiyo oo ah habeenka laylatul qadriga oo aan ognahay inay ka fadli badan tahay 1000 bilood. waxaa laga wariyey caaisha allaha ka raali noqdee inay tiri nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa markuu galo 10kan mid adkeeya guntiisa, nooleeyana habeenkiisa, toosiyana ehelkiisa. in lagu dadaalo cibaadada bishan sharafta leh iyo habeenada suuban ayaa shaki la-aan ah in la sameeyo acmaal badan si ilaahay subxaanahu watacaala inoogu abaalmariyo. abu hureyra allaha ka raali noqdee wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka salaada u istaaga habeenka laylatul qadriga isagoo rumaysan ajarna xisaabsanaya waxaa loo dhaafaa dembigiisa hore. maalmahani rasuulku sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisaba waxay u ahaayeen ahamiyad gaar ah, waxayna ku dadaali jireen cibaadada xuska alla subxaanahu watacaala, qur-aan akhriska, sadaqada si ka badan siday ugu dadaali jireen habeenada kale. waxaa ka mid ah acmaasha ugu muhiimsan ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam sida gaara ugu dadaali jiray qur-aan akhriska iyo sadaqada. walaalayaal, waxyaabaha sunnada ah ee la sameeya maalmahan waxaa ka mid ah in lagu ictikaafo masjidka. ictikaaf waxaa loola jeedaa in lagu nagaado masjidka iyadoo lagu dadaalayo cibaadada alla subxaanahu watacaala. ugu dambeyn waxaan isku dardaarmaynaa inaan ku dadaalno acmaasha suuban oon ilaahay subxaanahu watacaala aan ka barino inuu ina waafajiyo habeenada kheyrka badan oo aan ka dhex raadi doonno insha allahu tacaala hadduu ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyaba habeenkan oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka ku sheegay in ay ka fadli badan tahay 1000 bilood oo aan ka dhex raadi doonno insha allahu tacaala 10kan dambe. 1000 biloodna markii culimmadu fasireen waxay ku sheegeen waa 83 sano iyo dhowr bilood, halka dadka qaar ay dhahaan waa 83 sano iyo 4 bilood. dabcan 83 sano way ka badan tahay. acmaal aad suubinaysay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala 83 sano camal la suubinayay ayaa hal habeen ku heli doontaa. ilaahay subxaanahu watacaala hayna waafajiyo annagana aan noqono kuwii ku dadaala insha allahu tacaala
ilaahay subxaanahu watacaala ramadaanka haynoogu dhameeyo si caafimaad leh, tobankana habeenna aan noqono kuwii ka faa'iidaysta ugana faa'iidaysta daacadda alle subxaanahu watacaala. hadduu ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyana aan badina ducada iyo qur-aan akhriska si uu ilaahay subxaanahu watacaala inoogu dembi dhaafo, wax walba oo wanaagsanna ilaahay subxaanahu watacaala hana soo xojiyo, balaayo ida ilaahay subxaanahu watacaala hanaga qabto. intaas ayuu kusoo gebagabeynaa barnaamijkayga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.